فوقاتي ضيحي كرفوشي فعيدان هانو فضل كان راعني عدو يد فوقاتي ضيحي كرفوشي فعيدان هانو فضل كان راعني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال meel kasto aad nagala socotaan ku soo dhawaada barnaamijkan tiknoolajiyada barnaamijkan waxaan ku baranaa xeer nidaamyaha goobaha isgaarsiinta waxaana soo diyaarisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan waxaan ku baran doonaa qodobada labaad iyo saddexaad ee xeer nidaamyaha goobaha isgaarsiinta ee Soomaaliland ee daawasho wanaagsan qodobka labaad magaca xeer nidaamyaha xeer nidaamyahan waxaa loogu yeerayaa xeer nidaamyaha dhismaha goobaha isgaarsiinta hage lambar eberhal cheating 2019 qodobka saddexaad dabaqaada xeer nidaamyahan waxaa lagu dabaqayaa ruqsadlaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo qandaraaslayaasha la shaqeeya iyada oo loo eegayo xeerka boosaha iyo isgaarsiinta Somaliland xeer number 50 xariijin 2011 iyo xeerarka caalamiga ah ee la xiriira maareynta goobaha isgaarsiinta intaasi haddaynu daawadayaal ka nimaadno qodobada labaad iyo saddexaad ee xeer nidaamyaha goobaha isgaarsiinta qaybta labaad ee barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa sharaxaad ama falanqayn ku saabsan qodobadaasi aynu qaybta hore ku soo baranay iyo sidii faahfaahin dheeraad ah bulshada uga heli lahayd waxaana bixinaya ama soo jeedinaya injineer Maxamed Cumar Maxamed agaasimaha waaxda isgaarsiinta ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland ee daawasho wanaagsan haddaba wasaaraddu waxay diyaarisay iyadoo ka soo dheeganaysa xeerka boosaha iyo isgaarsiinta xeer lambar 2020 xeer nidaamyahan loo yaqaan xeer nidaamyaha goobaha isgaarsiinta ama xeer nidaamyaha dhismaha goobaha isgaarsiinta xeer nidaamyahan wuxuu ka mid yahay xeer nidaamyaasha asaasiga ay u baahan tahay wasaaradda isgaarsiineed oo kasta oo adduunka ka jirta kaasoo lagu maamulayo dhismaha goobaha isgaarsiinta ee loo yaqaan taawarada ama loo yaqaan base stationada xeer nidaamyahan wuxuu ka kooban yahay sidaan horeba soo sheegnay 24 qodob iyo 4 cutub haddii aynu qodob u eegno tusaale ahaan waxyaabaha looga jeedo diyaarintiisa qodobka labaad wuxuu sheegayaa un magaca xeer nidaamyaha oo ah xeer nidaamyaha dhismaha goobaha isgaarsiinta qodobka saddexaad ee xeer nidaamyahani wuxuu sheegayaa cidda lagu dabaqayo oo ah shirkadaha isgaarsiinta ama ruqsadleyda isgaarsiinta sidoo kale waxa jira wax loo yaqaan kontraktarada ama qandaraaslayaasha dhisa goobaha isgaarsiinta intaasi waxaan daawadayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenan tiknoolajiyada dhinaca muuqaal duubid waa Maxamed Maxamuud iyo Cabdicasiis Mursal sidoo kale barnaamijku waxa isku dubariday Cabdi Maxamuud Maxamed Cabdi Safwaan aniga iyo Sakariya Ahmed Maxamed oo barnaamijkeedii la socodsiinayna dhakayga waxaan isku dhaafinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adduunyada fogaate dayaxii korfuushay faceedaan ahaano fadalkana raacni adduunyada fogaate dayaxii korfuushay faceedaan ahaano fadalkana raacni